iftitaaxa u sameynaya oo masjidkan furaya iyo dadka muslimiinta ah ee khayrka jecel dhammaantood waxay u tahay maantay maalin aad u farxad weyn waa maalin la gaaray ru'yadii fikirkiina la xaqiijiyey dadaalkii dheeraa ee intaas ay soo wadeen culimmada guddiga ah iyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo dadka muxsiniinta ah guud ahaanba waa maalin dadaalkoodii uu aad u midho dhalay mirihiisana ay guran doonaan in sha allahu tacaala inta ay nool yihiin iyo marka ay dhintaan ka bacdiba ay dadaalkan mirihiisa ay guranayaan run ahaantii waxa weeye maantay waa maalin guuleed waa maalin qof walba ee ahluliimaana ee qalbigiisuba uu dhaqdhaqaaqayo uu ku farxayo masjidkan quruxda badan xaaladda maanta uu ku sugan yahay iyo shalay siduu ahaa shalay markii halkan laga jeedinayay khudbooyinka ee dadka muslimiinta ah ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool loogu baaqayay masjidka in ay dhisaan siduu ahaa iyo maantay sida uu yahay labada marxaladood qofkii fiiriya wuxuu dareemayaa farxad iyo guul waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa masjidkan dadkii juhdiga ku bixiyey oo ku bixiyey maal ama muruq ama maskax ku bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo juhdigooda juhdigii ay mahdiyaanna ilaahay ha uga dhigo subxaanahu wa tacaala waxaa weeye run ahaantii in qofku uu masaajidda ilaahay wax ku bixiyo waa nasiib iyo ayaan qofuu ilaahay jeclaaday ayaa masjidkan wax ku bixisay qofuu ilaahay doortay ayaa ilaahay abaal uga dhigay ee nasiib uga dhigay inuu masjidkan uu wax ku bixiyo leanna waxaa weeye dhammaanteen waanu wada tegaynaa waanu wada dhimanaynaa masaajidkan waa naga soo haray masaajidku wuxuu ummadda u sii khidmayn doonaa oo dalka iyo diinta iyo ummaddaba ugu sii adeegi doonaa inta dunidu ay taagan tahay ilaa qiyaami saaca dadkii dhisay dadkii guddiga ka noqday culimmadii ka hadashay dadkii lacagta iyo hantida ku bixiyey kulli waa wada tegaya waxaana ku cibaadaysan doona jiilal naga dambayso oo noo soo ducayn doona inta lagu cibaadaysanayana aan rajaynayno qof walba ee masjidkan gacan ka geysatay inuu mahdin doono nolol iyo geeri inta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay jalla jalaaluhu inuu ilaahay uu jecel yahay qofka ilaahay dartii wax u bixiya marka waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka muxsiniinta ah iyo gabdhaha muxsinaadka ah ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba masjidkan ka soo taageeray in ilaahay uu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala oo ay helayaan biidni illaahi tacaala maxabbat allah liannahu ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin ixsaan sameeya oo wanaag iyo sadaqo sameeya ilaahay uu jecel yahay dadka ixsaanka iyo sadaqada sameeya faa'iidada marka ay helayaan dadka muxsiniinta ah ee masjidkan wax ku bixiyey faa'iidada ugu weyn waa maxabbat allah in ilaahay uu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka ay helayaan in ilaahay jannada uu guri uga dhisay cid walba ee masjidka maskax ama muruq ama maal ku darsatay maxaa yeelay nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ku yidhi man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofkii ilaahay dartii masjid u dhisa oo masaajidda ilaahay ka qayb qaata guri ayaa ilaahay jannada uga dhisa
subxaanahu wa tacaala. waxaanu soonahay dhammaanteen guri adduunyadan aan qiimaha lahayn oon hadda aanu ka tegayno hal dirham aan laga qaadanaynin oo guriga aad dhisatay buu leeyahay hormaydka nooga soo saara war nooga soo bixiya guriga aad dhisatay. adduunyada cumrigeedu intaa leegyahay haddii guri filla ah furihiisa lagu wareejiyo oo la yidhaha gurigan adduunyada adigaa iska leh, waxaan ogsoonahay inuu qofku farxad dareemayo weli maanta guri ayaan helay. ka waran haddii furaha guri jannada ku yaalla furaha lagugu wareejiyo oo weligaa aadan ka dhimanaynin oo weligaa aadan ku gaajoonaynin oo weligaa aadan ku xanuunsanaynin oo nicmada daa'imka aad ku helayso lacag yaroo masjidkan aad ku bixisay ama cilmi iyo aqoontaada adigoo injineera aad masjidkan maskaxdaada iyo cilmigaaga ku sadaqaysatay haddii guri jannada lagaaga taago furihiisana lagu wareejiyo oo waxaad u weyn oo aada lagu farxo. sadaqada marka waa qayb ka mida geesinimada, waa qayb ka mida kalsoonida qofku uu ku kalsoon yahay ilaahay ballanqaadkiisii subxaanahu wa tacaala. leanna culimada markay sadaqada ka hadlayaan waxaa leeyahay albuklu nawcun min aljubni. bakhiilnimada waa qayb fulaynimada ka mida. qofka aan wax bixinaynin culimada waxay yidhaahaan waa qayb fulaynimada ka mida ku jirta. leanna waxa weeye kuma dhiiran karo inuu jeebkiisa wax ka bixiyo. wax bixintuna waa nawcun min ashajaacati wahiqati bicataa'i illaahi tacaala. wax bixintuna waa qayb ka mida geesinimada iyo kalsoonida qofku ilaahay ballanqaadkiisa oo aada ugu kalsoon yahay. liannahu ilaahay jala jalaaluhu isaga u ballanqaaday qof walbee ilaahay dartii wax u bixiya inuu ilaahay ugu bedelayo wax ka khayr badan. ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin. waxaad ilaahay dartii aada u bixisaan ilaahaa idiin bedelaya wax ka khayr badan idinkugu bedelaya maadaama ilaahay uu yahay khayru raasiqiin. inta waxaysaaqan allah ugu khayr badan. marka faa'iidada kale sadaqada ee dadkii masaajidka wax ku bixiyey ay helayaan waa in ilaahay hantidooda ilaahay uu u barakaynayo. nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay wuxuu ku yidhi halaaatun uqsimu calayhim. saddex arrimood waan ku dhaaranayaa wuli rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh. saddexdaa arrimood waxaa ka mid ahaa maa naqasat sadaqatun min maalin qad. waxaan ku dhaaranayaa wuli rasuulku sala allahu calayhi wasalam sadaqo inaysan maalkaaga nusqamin. sadaqo ilaahay dartii aada la baxday, masaajidda ilaahay aada ku taageertay, nabigeena ku dhaartay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inaysan waxba kaa bilaynin oo weel aysan kaa bilaynin oo weel aysan kaa nusqaaminaynin oo akoon aysan kaa nusqaaminaynin bal ay barakaynayso uu ku dhaartay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh. fiiriya dadka sadaqada badan oo guryahayda kula nool, deegaanada kula nool ood garanaysaan oo asxaabtiinna ama qaraabadiinna tusaale u qaata. ma aragteen qof sadaqo badan oo xoolo beela oo meel cidlaa soo fadhiisa. fii taariikhi albashariya lama sheegin taariikhda bini aadamku intuu noolaa qof sadaqo bixiyey oo ka shallaayay oo yidhi maxaa igu watay sadaqada aan bixiyey. bal fii taariikhi albashariya waxaa lagu arkay qof walbee sadaqo bixiya inuu mahdiyo. weligeed lama sheegin qof sadaqo bixiya oo ka shallaayay oo yidhi waxbaa iga nusqaamay waxbaa iiga garoobay maxaa igu watay sadaqada. bal taa cagsigeeda un baa la arkayay oo inay dhammaan dadka sadaqada bixiyey ay mahdinayeen sadaqada oo ilaahay waafajiyey qof walba u leeyahay. sadaqada marka alinfaaq fii sabiili alkhayraat faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid a
inay kayd kuu noqonayso oo ajirkii uu kuu soconayo adigoo qabrigaaga ku jiro laa siyamaa kumaba sii jirto masjidkan oo kale qofkii nasiib ku yeeshay inuu hal shilin ama hal doolar ama kun shilin soomaaliya uu ku bixiyo kumaba sii jirto maxaa yeele waa sadaqa jaariya nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii uu warinayay imaamu muslim fii saxiixihi wuxuu ku yidhi idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila bisalaas qofka bini aadamku hadduu geeriyoodo camalkiisi waa go-a wax dambe ee ajira ee loo qorayo ma laha ilaa saddex qof maaha saddex qof waxaa weye isagoo qabrigiisa ku jira ayaa akoonkiisii aakhiro waxaa ku soo dhacaya buuro ajira jibaal min alxasanaat isagoo qabrigiisa isaga jira ayaa waxaa ku socda dallacsiin iyo ajir uusan filanay waana qof waa hore dhintay saddexdaas maxaa ka mid ahaa sadaqatin jaariya sadaqada jaariyada ah waa masjidkan oo kale sadaqada jaariyada ah ajirkeedu markaa go-ayo waa waqaf ilaahay dartii aada uga baxday adigoo qabrigaaga ku jira ayaad ku cuni doontaa halkan walidaalika magaaladan hadda aanu ku noolnahay iskaba dhaaf waa magaalo aada u hanti badan runtii hal qof hadda guddigu waxay noo sheegeen 300 iyo wax yar jajab ah in masjidka lagu dhisay waxaan ogsoonahay magaalada muqdisho waxaa laga helayaa boqolaal qof oo qof walba 300 uu bixin kara mi'aad ayaa laga helay min almuxsiniin hal qof aa masjidka dhisay magaalada muqdisho ku nool hadda kahor waxaa mar tegay magaalo la yidhaahdo istanbul oo turkiya ku taal xaafad la yidhaahdo xinat alfatih marka masjid waxaan ku arkay magaciisa albaabkiisu uu ku qoran yahay kaanii akaltu magaciisa dhanba waxaa la yidhaha kaanii akaltu waaba anigoo ku cunay wey yani macnihiisa saasa isagana masjidka magaciisa yidhaha kaanii akaltu waxaa hoos haddana uga qoran afkooda turkiga ah ayaa hoos uga qoran sanki iyo duum iyo kaanii akaltu asmacno oo anigoo ku cunay ka marka dadkii masjidka ayaa weydiiyey waxaa idhi maxay tahay waa anigoo ku cunay maxaa loola jeeda masaajidkan oo anigoo ku cunay lagu magacaabay maxay magac kale miyaa loo waayay masaajid iyo cunid munaasabada ka dhexaysa maxay tahay anigoo ku cunay masaajidkii dhamma anigoo ku cunay marka ninaa wuxuu igu yidhi masaajidkan taariikhuu leeyahay nin waxaa dhisay uu yidhi sabool ahaa oo waxba haysanin oo inta badan xataa biilkiisa dadka xaafadda ay u aroori jireen masaajidka dhisa wuxuuna samayn jiray ninkaasi markii hal shilin uu soo galo shilinkuu la hadli jiray lacagta nafteedu la hadli jiray shilinku wuxuu leeyahay sanki iyo juur shilinoo waaba anigoo ku cunay ka oo caloosha kaa buuxsaday markaasuu santuuq isaga dhigay waa ku cunay laakiin ku cunay maayo maxagee kuu wadhaan masjidaan kugu dhisaa 15 sano uu 15 sano marka ma fiiriyo yidhi santuuqa waxaa ku jira ma fiiriyo 15 sano kabacdi uu fiiriyey isagoo lacag badan oo masaajid dhisi karta markaas masaajid wuxuu ku magacaabay kaanii akaltu shilina waa ku cunay ka laakiin ku cunay maayo masaajid ugu dhisa marka waxaa la yidhi masjidkii magaca in laga bedelo waa la diiday maadaama nin miskiin oo gaajaysan oo shilinkii u baahan intuu shilinka la hadlay uu leeyahay shilinow anigoo ku cunay ka dhig maadaama masjidka sidaa uu ku bilowday masaajidka waxaa la yidhi magacayaa laga bedelo kaanii akaltu yaa loo diiday isaga marka waxaa weeye dadaas sidaa masaajidda ku dhisay masaajidda ilaahay dadaas sidaas u soo dhisay waxay og yihiin waxa meesha ku jira waa laga helay waxay daraysan yihiin
يقان سرت الذي عجائبته صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مالنا الله كمل حديث أبو داود وسنن في سكورنا وحديث سيدنا عمر كورنا سيدنا عمر أبو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما فقلت أسبق أبا بكر اليوم إن سبقته اليوم مالنا الله كمل النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مسجد وكيستاغي وأمتي وكبوريي صدقة إلا بكيه مركاسا waxaan irigu yiri maanta ayaan Abu Bakar ka hormaray hadii ay jirto maalin aan ka hormaray maanta rabaa inaan sadaqa uga hormaro sida Abu Bakar guriga aaday yiri masjidkii nabiga ka istaagay sallallahu alayhi wasallam mubarak alayh hantideedii intaan xisaabay hantidii kala bar annabigu u dhiibay sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri maada abqayta li ahlik حد قصة تكتي أهل ذلك مركز رسول الله أبقيت له مثله أنت أنا وكلام قصة تكتي عروتي يا أهل أبو بكر يسمى فجاء أبو بكر بجميع ماله سيدنا أبو بكر وحي أقوامك وجري يسطوه وجري أردن يسوى درهم بالدينار كرهنا أي نبي بكر صلى الله عليه وسلم مركز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أبقيت لأهلي؟ أهلي عرورتي محل وصوة تكتب أبقيت لهم الله ورسوله إلهي يرسلك سنوي سوتي من وجرى ما تقصد بها مقال قف أكون كيسا زيرو كسر ريبه ومركز لها يا أهلي يا مستقبل كي قدام وحنكون أمر إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم الوسط ما ننكر لكن الله لا بأس ما ننكر أبقيت له الله ورسوله إلهي يسلك يا يسلك أهلك وأولادك مركز سيدنا عمر بن ربيع والله لا أسبقك أبدا سيدنا عمر بن ربيع أبو بكر ولي القوة ترتمي عليه ما قالوا لا ترتمي كلهم صدق الله ولا ترتمي إن سوف أرجع يسوع بيسوع أرجع قال كينايا ولي وكلا ترتمي أو مركز دتك يقال سنت صدقة هي صدقة وحي تهاي ساسي أهايتي مال قلوبا أي صدقة سنتي وحي مساعد الطبقات في سكوت وري أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أي عبد الرحمن بن عوف وحدوثها قريب مال أكبر وبقول كل قارئ ودينار أيضا ويسوع كل ويقيس درسك قرابة يومي مرة وطول بأخيرا أي قيس ويسوع وهي هالمانتي هل درهم ريكر ريبته وأفر يكسر جسده قبل جاريد يقول يكسر غير ساوحتي يا أم المؤمنين لماذا نفكر عايشة يحقوا أفرينا مركاسي waxay tiri لو ذكرتيني لا بقيت هذا اللي حسوس الله هل درهم وكربنا لكن والله ما بيتر نفسه يعني دد صدقات waxay sameyn jireen qaarkood inay naftoodii halmaamaan عايشة maxay xasuusi weysay jireen inaan soo maray oo guriga casho aysan oolin nafteedii waan ba halmaamay tir muna عايشة maxay xasuusi weysay marka waxa weeye صدقات السر إلى لها أسرار عجيبة أي إسكال لها لذلك وحول علماء يقدم بين دونتا وحال أوهر مرنا علماء يقوى أبوين يقنع علم البضن وحال يهر مريي ميلا كده السنة هاي وانيقا دقدق سنة لكن علمي فرها بضنا هي خير في بضنا ونوضم بينا إن شاء الله تعالى ذاتك أهل الخير أهل العلم أيان نرجد دورا إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته